gudoomiyaha hay'adda qaxootiga iyo barakacayaasha Soomaaliland Cabdikariin Xinif iyo wafdi uu hogaaminayo ayaa maanta kulan la qaatay maamulka gobolka Gabiley waxaanay ka wada hadleen arrimo la xiriira qaxootiga barakacayaasha waxaana kulankani ka hadlay barasaabka gobolka Gabiley Cabdikariin Aadan Xaaji Deeriye waxaana uu gudoomiyaha iyo wafdigani ku soo dhaweeyay gobolka Gabiley gudoomiyihii hay'adda barakacayaasha qaranka Jamhuuriyadda Soomaaliland oo waaxihiisii oo kala duwan oo dhammaan iyo la taliyayaashii hay'adda oo dhan horkacaya noogu yimi gobolka Gabiley gudoomiyaha kugu soo dhaweynaa gobolka Gabiley waxa aanu iska xog wareegsanay xaaladaha ka taagan ee khusaya hay'adda shaqada ay u gmantahay wayhaasa qaranka si wanaagsan oo qurux badan baanu isula lafa gurnay xaaladuna waa wanaagsan tahay gobolkuna gudoomiye si aan aynu xogta isku wareysanay gobolku waana gobol marka la leeyahay waa gobol yar baa la yiraahdaa laakiin waxaan qabaa inuu yahay gobolada ugu weyn maadaama uu xadkii Soomaaliland uu ku xeeran yahay 110 milyan oo dhow oo Itoobiyaana xogaha aynu ka wada hadlaynaa uu daaraa barakacayaasha dalka ku sugan iyo xaaladiisa sidii aan warbixinta kugu siinay bay tahay waxa inta waana soo dhaweynaynaa waana idin la shaqeynaynaa wax kasto nooga baahantiina waa diyaar baan u nahay gudoomiyaha hay'adda qaxootiga iyo barakacayaasha Soomaaliland Cabdikariin Xinif ayaa sidoo kale ka hadlay ujeedka kormeerkani saaka waxaan u soconay anagu inaanu marno labada gobol Gabiley iyo Awdal gaar ahaan labada magaalo madax Gabiley iyo Boorame waxaanu doonaynaa inaanu maamulada dawladda ee jooga iska soo xog wareysano arrimaha dadka soo galeetiga ee qaxootiga ah ama ajnabiga ah ee bariyahan dambe aad moodo xoog inay xagga Itoobiya uga soo badanayaan oo qayladhaantana in doora baan maqlaynay marka waxay naga siiyeen runtii xog aad iyo aad waafi oo dhameystiran waxay naga siiyeen macluumaad fara badan oo aanan haynin waxaanu ogaanay xog badan oo aanan la soconin oo bariyahan dambe waliba cusub oo saameynteeda ay leedahay dagaalkan Itoobiya hadda ka socda aanu ogaanay khataro badan oo gobolkan si gaar ah ugu wajahan in ay jiraan iyo dadka deegaankiisa marka kulliba waxaanu doonaynaa ribood weyn intaanu ka diyaarino oo xogaha aanu helo dhan isku hagaajino oo diyaarino inaanu u gudbino madaxweynaha oo ka codsano inuu isugu yeero laamaha dawladda ee ay khusayso wasaaradda arrimaha gudaha iyo immigration-ka wasaaradda beeraha oo arrimahani meel ay ka soo galeen oo fara badan ay ka soo galeen wasaaradda maalgashiga iyo ganacsiga oo iyana meel ay ka soo galeen iyo cidii kale looga maarmi waayo wasaaradda arrimaha dibadda meelaha ay khusayso oo dhan inta la qaran laga yeesho ayaanu doonaynay oo xogtana aanu ururinaynay marka aad iyo aad baan ugu mahadnaqayaa maamulka gobolka iyo degmada ee gobolka iyo degmada Gabiley markalena waa mahadnaqayaa Farxaan Cabdawciise Honkebel TV gobolka Gabiley maxaa ku dhibay isticmaal Samtel si aad u heshid internet xad lahayn macmiil ku shubo internet ama ku hadal si aad uga mid noqoto 10,000 ee guuleystay helaya abaalmarino ay ka mid yihiin guri dhul geel ari dahab iyo hadiyado kale oo qaaliya haddaba kaga shubo ii dahab xidig hal eber hal 4 gees